بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada. magacay waa Maryan. maanta insha Allah videoga waxaan kaga hadlayaa dadka caruurta qaata ama la yiraahdo child protection, arrin ku saabsan kashifkii ku dhacay child protection. maanta ka hadlayaa kashifkii ku dhacay dadka loo xil saaray inay caruurta ilaaliyaan ama bategarayaan. maanta ka hadlayaa insha Allah. soo dhawaada. wiiga horena waxaa ka socday newska ama warka ka socday arrin ku saabsan ciyaalka waalidkood laga qaado. caruurta waalidkood laga qaado waa laba qaybood. qayb waxaa la geeyaa meel la yiraahdo foster care, oo waxaa loo geeyaa family guri degan. qaybta labaadna waxaa la geeyaa meel la yiraahdo children's home, guri weyn oo sharina oo qolal badan ku yaalaan oo loogu talagalay in ciyaalka lagu ilaaliyo. marka shaqaaluhu waa dad badan oo kala duwan. inta badan waa in la soo jeegareeyo background-kooda oo inay dambi soo galeen laga eego. marka wiigii hore waxay BBC-du daboolka ka qaadeen ama kashifeen inay guryahan ciyaalka loogu talagalay in lagu hayo ciyaalka age-koodu yahay 16 jir ilaa 18 jir, guryaha loogu talagalay in lagu xareeyo ama lagu hayo in caruurta lagu abuse gareeyo oo dhibaatooyin aad u badan ciyaalka kusoo gaaraan. marka wiiga hore waxay BBC-du sheegeen ama tilmaameen in ciyaal badan oo guryahaas lagu hayo caruurta guryaha lagu hayo ciyaal badan oo ka mid ah in la abuse gareeyo. waxay sheegeen qaar badan oo lagu sameeyo faraxumo oo guriga dhexdiisa lagu abuse gareeyo, oo ciyaalku age-koodu 16 jir ilaa 18 jir qaar ka mid ah iyagu is abuse gareeyaan. waxaa kaloo la soo ogaaday in guryahaas drugska aad loogu iibiyo oo caruurta lagu hayo aan si fiican loo jeegarayn, intay iska baxaan ay dhex galeen dadka daroogada ama drugska iibiya oo ay ka qayb noqdeen gaanan. marka waxay yiraahdeen waxaan isku daynaa in guriga ka fogaano, guriga naceen, oo dadka guriga ku haya ayaanay la heshiin waayeen oo waxay ka dareemeen in la controlayo, la ilaalinayo. marka waxay yiraahdeen inta badan guriga intaan ka baxnaan iska maqnaana maalinta oo dhan aan idin naga daba iman oo aan meelaha drugs ku iibinaa. oo waxay yiraahdeen problem badan, dhibaatooyin badan baa nala soo kulmay oo ay ka mid yihiin in ayna isticmaalaan gaananka iyo dadkan drugska iibiya. qaar baa waxay yiraahdeen waxaan isku daynay inaan gabadh baa tiri waxaan isku dayay inaan 7 jeer isdilo inan yar. waxay 7 jeer baan ku sigtay in nafta iska saaro oo isdilo. qaar waxaa laga soo saaray qaar dadka shaqaalaha qaar ka mid ay dilayaan oo feer iyo laad ay ku garaacayaan laga soo saaray. marka waalidka caruurta reer Soomaaliyeed ee waalidkooda ashkateeya ee u haysta inay nolol taalo meelaha caruurta la geynaya, meelaha nolol ma taalo. caruurta la geeya inta badan waxbarashada ka haraan, jeelalkii ka buuxaan inta badan ciyaalka keerka kusoo koray ama meelaha lagu hayo caruurta. marka waxa ka digtoonaadeen caruurta reer Soomaaliyeed markasta waalidkooda ashkateynaya ee booliska u wacaya ee hooyadii aabahay dilay waa in loo sheego inaan meesha nolol oo meel lagu baqtiyay ay tahay, oo dadkii cadaanka ah wadanka u dhashay ay qaar badan oo kamid isku dayaan inay nafta iska qaadaan oo isdilaan. oo dadkan shaqaalaha waxay dadka inta badan cidina ma jeegarayso. dadka caruurta marka waalidkood marka caruurta laga qaado halkaas guryahaas la iska geeyaa. guryaha waxay yiraahdeen BBC warka waxa laga soo daayay inaan qaar badan oo kamid ah waxay yiraahdeen thousands oo guryahaas oo kale baa jira oo aan cidina jeegarayn oo cidina eegin oo abuse badan ka socdo, oo caruurtii loogu talagalay in lagu ilaaliyo la bategareeyo lagu ilaaliyo loogu talagalay lagu abuse gareeyo lagu dilo. marka waalidka ogaadeen meelahan oo kale inaan nolol oo caruurtii jeelasha ku jiraan, qaar badan ay isdileen
qaar badan ay drugs iyo balaayo ay dhex galeen oo aan nololi ool. caruurta inta badan ay kasoo baxaa meelahaas shaqo ma helaan, waxbarashada way ka haraan, waxay hadhu noqdaan homeless. dadka dibadda seexda ee meelaha drugska iyo ku qaata ee banaanada jiifa inta badan waa dadka waxaa layahay care leavers. markay 18 jir gaaraan dowladdu mas-uul kama aha no more. markaas suuqa waxaa la odhanayaa iska taga good luck noloshiina orday wata, hadhow shaqo ma helayaan. hadhow waxay noqonaysaa inay ama drugska dibadda ku iibiyaan ama jeel intay dami galaan jeel lagu rido, ama ay noqdaan dadka dibadda seexda homelesska aan guryaha haysan. way yar yihiin inta nolosha heer fiican ka gaadhaa dadka guryaha keerka la geeyo. marka caruurta yar Soomaalida way ogaadaan inaan meelaha nolol ool. dadkan caruurta qaadanaya ugu sheekeynaya waalidka in caruurtooda la ilaalinayo been iyo balaayo u sheegayaan. hadhow caruurta kama daba tagaan, halkaas caruurta lagu ilaabayaa, cidina ma jeegaraynayso. BBC waxay soo ogaatay dadka guryahaasoo kala gashay qaar ka mid xitaa inay jeelal ka soo baxeen oo aan cidina si fiican usoo jeegarayn oo ragkoodkooda ama criminal record jeeg lagu samayn. waxaana yahaan DBS-ka inaan laguba samayn ay shaqada intay iska bilaabeen hadhowtuna dee qof jeel kasoo baxay waad garanaysaa bilaayo baas maskaxda ka qabaa. hadhowta caruurta u doono abuse garaynayaa, hadduu doono isagaa drugska caruurta u diray inay iibiyaan. marka la iskuma halayn karo meelahaasoo kale nololnimo taalo. iyarka yar Soomaalida waa in loo sheego ay ogaadaan aabahoodii hooyadooda wax uga wanaagsani ma jiraan, gurigooda wax u dhaamaa ma jiraan, gurigooda ay markay doonayaan naseexanayaan, markay doonayaan soo kacayaan, markay doonana ay talaagada cuntada kala soo baxayaan ay cunayaan. hadhowta waxaa ma helayaan, waxay ku jirayaan control. waqtigan qoraaca, waqtigan qadee, waqtigan seexo, waxa laale wax ay freedom ay leeyihiin ma jiraan meelahaas oo marka ciyarka la geeyo. curfew baa lagu shaqeeyaa, waqtigaas soo gal, waqtigaa bax. waxaan waalidka marka gurigooda la joogo cuntada la iska soo qaadanayo, sheekada iyo TV-gan la iskaga leedayo la daawanayo ma jirayo. marka ciyarka yar waan la ogeysiiyo inay waalidkood wax uga wanaagsani jirin oo khatartuba dibadda taalo iyo meelahan guryahan ciyarka la geynayo inay very dangerous yihiin. dad baa isku dayay 7 times baa gabadhi tiri waxay tiri nafteeda in iska jaro ayaan ku sigtay. midi waxay tiri anigoo siiga oo xanuunsanaya ayaan ka ay ii diidan in hospitalka tago. ay ugu yaraan haddaad doonayso hospitalka inaad qabato oo dukaanka intaad tagto ambulance xagga uga yeedho. markaa nololnimo taalo meelahan. intaasan doonayo in la sheegarayo dadkan iska dhigaya cajiibka inay caruurta ilaaliyaan, caruurta jeegarayaan, caruurta keergarayaan waa bullshit, waa been iyo balaayo. waxaan jirin bay idiin sheegayaan, ha rumaysanina. insha allah khayr inoo baan rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.